waa tuma asmaloof maxaad kala socotaa nolosha asma jacayl iyo saygeeda axmed weli furunle maxaa asmaloof ku qasbay in iyada oo niqaab ama indho shareer xiran ay suuqyada magaalada hargeysa u dukaamaysi tagto wax badan ka ogow yaa u bixiyey magaca loof oo asmo loogu daro maxaad kala socotaa nolosheeda dhabta ah goormee dhalatay xageysa ku dhalatay fanaanada asmaloof oo xilligan xidigaha geeska ka mid ah ogow ogaanshiyo iyo xaqiiqo dhab ah oo la xiriirta nolosha fanaanada caanka ah ee asmaloof oo dhammaystiran waa asma axmed ismaaciil asmaloof waxaana fanaanadan ay ka mid tahay fanaaniinta xidigaha geeska ee ka dhisan magaalada hargeysa xidigtan fanka xilli dheer ku jirtay ayaana waxa ay sumcad iyo magac ka samaysay xidigaha geeska oo ay ilaa iyo weligeed ku jiri jirtay iyadoo asmaloof sidoo kale fanka kaga soo beertay jigjiga asmaloof ayaa xilliyo kala duwan kusoo kala qaadatay jigjiga iyo sidoo kale hargeysa oo fankeedu u dhexeeyo inta badan asmaloof waxa ay ku dhalatay sidoo kale magaalada lagu magacaabo harta sheekh oo ka tirsan Itoobiya xidigtan fankeedu soo kabcay sanadahan dambe ayaa waxa ay fanka kaga soo beertay magaalada jigjiga fanaanada caanka ee asmaloof ayaa waxa ay nolosha la wadaagtaa fanaanka muusigiistaha sidoo kalena mararka qaar ah mulxamaystaha axmed weli furunle oo isagu ka tirsan xidigaha geeska waxaana labadoodu ay noloshoodu tahay mid aad u wanaagsan xilligan asmaloof iyo sidoo kale fanaanka muusigiistaha ee axmed weli ayaana iyagu caruur wada dhalay bal asmaloof hay nooga sheekayso nolosheedii bilowga sidii ay axmed weli furunle ku guursatay iyo sidoo kale halka ay ku dhalatay iyo xog la xiriirta nolosheeda oo dhammaystiran waxaan ku dhashay magaalada Itoobiya harta sheekh halkaasaan ku dhashay laakiin jijigana banaan joogay hargeysa u dhaxeeyay jijigana waxbaan ka bartay halkan fanka kaga soo biirino jijiga sidoo kale asmaloof ayaa iyada oo niqaab ama indho shareer xiran suuqyada magaalada hargeysa u dukaamaysi tagto sababtaas oo ay ku sheegtay in ay taageerayaasheedu aad u badan yihiin marka ay suuqyada joogtana ayba ka codsadaan in ay sawirro la gasho taas oo keentay in iyada oo diidaysa inay taageerayaasha ka dhaxbaxdo ay sidaas u xiratay bal asma sheekadaas xiisaha badan iyada hay nooga sheekayso horta safiya waa su'aal fiican horta bulshadu dad horta anaga Soomaaliha markaan eegno dadku fanka way jecel yihiin aad shakhsigiyo ku arkaan inuu maxaan ku raadayay wax ka qarinaya jirno wadadii socdo ma xilliga waa lagu iimanayaa sawira laga qaadanayaa waa maxaan ku dhaday aad noo sharfaan laakiin waqtigan isleeyahay oo markaan wax iibsanayo waan la kulanaa waxyaabaha qaar laakiin waxa markay مثلا سوق كان أنا وحاجة بهنا أما واحد دق عن سوق بسنة أما هو بتكيو كلام حسوا يبينيو أما ده هو يعني عندوني سوق كلنا كأديكتو مرة قار رنبا في عن واحد حدا نقام يحجاب بتنا بس بما قرنيان ساعة ردد مرة واحد بودي بسن كرتا وارم واحد كوس على سعينا ميل كستا oo bulshadu wax ka iibsatay aad ka iibsan kartid sariimada inaad ka adeegan kartid sax waaro waxa ku dhaday inaad suuq hoose wax ka doonan kartid meel kasto ciliiri iyo meel kasto shacabku wax ka iibsadaan inaan ka soo iibsan karo laakiin ay adag tahay adoo waji banaan laakiin ay adag tahay anigoo wajigaygu banaan yahay inaan ka adeegan karo waayo de wadareemka saarada meel kasta oo jacayl soo qabanay koornayaan ha meel kasta marka daadiga marka dadka si waqti waa aad laakiin ma noon garmarnay fanaanada caanka ee asmaloof ayaa waxay nolosha la wadaagtaa fanaanka muusigiistaha sidoo kalena mararka qaar ah mulxamaystaha axmed weli furunle oo isagu ka tirsan xidigaha geeska waxaana labadoodu ay noloshoodu tahay mid aad u wanaagsan xilligan asmaloof iyo sidoo kale fanaanka muusigiistaha ee axmed weli ayaana iyagu caruur wada dhalay ciyaaraha sportska kale maadaama adigu aad ilmaha korisid mooyaane aad wax kala qaban horta ciyaaraha kubadda cagta waxa ma waxaysay sax laakiin maxaan ku raday yaraanteedii iskuuladii waxa baaskan waxa bulbuladii habla isku tuturaan waan ciyaari jiray laakiin imika khaasatan sport ma ciyaaro laakiin gymka iyo waxa ayaad ciyaartaa hilibkaas gelibisa wataas waxa la dad badan ku dhageysan doonaa aad barto jeclaan doonaan kala sadaanaguna waan iska rideynaa baashe asma marka wadooyinka maraysideed amba wax iibsanaysid dadku wajigaaga arkaan ay ku gartaan asmahan maxaa la kulanta horta safiya waa su'aal fiican horta bulshadu dad horta anaga Soomaaliha markaan eegno
dadku fanka de way jecel yihiin aad iyo aad shaqsigiiyo dee ku arkaan inuuna maxaan ku dhahday sax dee wax ka qarinaya jirno wadadii dee socdo ma xilligaa waa lagu imanayaa sawira laga qaadanayaa waa maxaan ku dhahday de aad inoo sharfaan laakiin waqtigan isleeyahay oo de markaan wax iibsanayo waan la kulanaa waxyaabaha qaar laakiin waxaa markay مثلا سوق كان أنا وحاجة بهنا أما واحد دق عن سوق بسنة أما هو بتكيو كلام محسو يبينيو أما ده هو يعني عندوني سوق كلنا كأديكتو مرة قار رنبا في عنا واحد عندنا نقام يحجاب تنا بس بما قرنا يعني ساتردد مرة واحد بودي بسن كرتا وارم واحد كوسة على سعينا المال كستا oo bulshadu wax ka iibsatay kiibsan kartid sariimada inaad ka adeegan kartid sax waaro maxaa ku dhahday inaad suuqa hoose wax ka doonan kartid meel kasto ciliiriye meel kasto shacabku wax ka iibsadaan inaan ka soo iibsan karo laakiin ay adag tahay adoo waji banaan laakiin ay adag tahay anigoo wajigaygu banaan yahay inaan ka adeegan karo waayo de wadooyinka saarada meel kasta oo jacayl oo qabanayo koodhanayaan ha meel kasta marka adiga marka degdegaysid waqtiga waa aad laakiin ma noon garmarnaygon iga qolo badan oo garanayo aad u calayogna baalka isticmaala aadi aniga horta xamdi kuuni waxa halkaas aan ku dheereen hada xamdina lagu qabayde heesta dhaayo